السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالadaha adag ee nolosha mawduucana maanta waxaan uga hadli doonaa xaaladaha adag ee nolosha soo wajaha mararka qaar iyo sida ay dadku ugu kala gudbaan waayo inta dunidaan joogto ma jira wax joogto ku ahaanaya adiga farxadaada caafimaadkaaga wax waliba uma soconayaan sida aad adiga u rabto oo mararka qaar waxa ku soo wajahaya xaalado adag oo kala duwan xaaladaha qofka soo mara waxa kamid ah kuwa wanaagsan oo farxad gelinaya kuwa iska normal ah iyo kuwa aad u adag xaaladahaas oo xanuunkooda qofba si u dareemo sidoo kale qof walba wuxuu leeyahay qaab dhaqan uu ku xalliyo xaaladaha kala duwan ee nolosha ku soo wajaha taas oo loo xalliyo siyaabo kala duwan iyadoo loo fiirinayo hadba meesha ay caqabadu ka hayso sidoo kale dadku waxay leeyihiin awooddaas oo ah inay isticmaalaan qaabab kala duwan oo dhibaatada looga badbaadayo kuwaas oo qaar kamid ah aan halkan ka soo gudbin doono sidaa darteed shantan qodob ee soo socda keebaad isleedahay waad uga badbaadi lahayd xaaladahaasi ku soo wajahay midda koowaad qof ku badbaadaya dareen muujin qofkan dareenkiisa oo muujiyo ayuu ku badbaadayaa wuxuuna ku muujiyaa inuu ooyo ama uu qoslo sidoo kale dareenkiisana wuu sheegaa oo ma ahan mid dareenkiisa qarsoon sidoo kale dadka qaar ayaa waxay dareenkooda muujin karaan ayagoon hadlin sida inay muusig garaacaan ama ay wax sawiraan iyo wixii la mid ah balse xaaladda waa mid naadir ku ah muslimiinta dhexdooda midda labaad qof ku badbaada dhexgalka bulshada qofkan bulshada ayuu dhexgala doorna uu ku yeeshaa wuxuu bulshada kale ka raadsadaa caawin ama uu garab weydiistaa doorna uu ku yeeshaa wuxuuna isku dayaa oo isku taxallujiyaa inuu wax abaabulo sidoo kale qofkan dadka kale wuu qaabilaa wuuna caawiyaa midda saddexaad qof ayaa ku badbaadaya inuu dhinacyo badan wax ka eego qofkan ayaa wuxuu adeegsanayaa maskaxdiisa wuxuuna isku dayaa inuu ka hakado uu ka istaago waxyaabaha soo xasuusinaya wixii dhacay ama dhibaatooyinkii uu la soo kulmay isagoo isku dayaya inuu xal u helo dhibaatada la soo diristay una istusiyaa qaab uu uga badbaado dhibaatada midda afraad qof ku badbaada in si qoto dheer wax u eego qofkan sida dheer arrimaha u eega tusaale ahaan waxaa noloshiisa qayb weyn ka ah diinta ama ku adag yahay iyo xil iska saaridda bulshada ama qaab nololeedka bulshada amaba u fikirkeeda midda shanaad ee ugu dambaysa qof ku badbaada wax waliba waa ku meelgaar maskaxdiisa wuxuu ka dhaadhiciyay wax waliba waqti bay leeyihiin habeenka maalin baa ka dambaysa oohinta iyo murugada farxad baa ka dambaysa xanuunka caafimaad baa ka dambeeya haddaysan taada imaanin rafaadka raaxa ka dambaysa markuu waqtigu ku adkaadaba waxaa ka dambeeya waqti farxad leh haddii aad faraxsan tahay hadda kasii dharag waayo xoogaha kadib way isbedeli kartaa sidoo kale haddii aad murugaysan tahay iska dulqaado waayo wax yar kadib way isbedeli doontaa waana fikir 100% isdhihi karo waa fikirka aad ugu gudbi karto dhibaatooyinka ama iska ilowsin karto oo ma jiraan dunidan wax joogta ahaana badanaana shantaasi qodob mid kamid ah ayay dadka badanaa ugu gudbaan dhibaatooyinka balse waxaa caadi ah in la soo maro dhibaatooyin waxayna qayb ka tahay bani'aadamnimada inkastoo laga yaabo inay noqoto mid dhibaatooyin iyo xanuun leh dhibaatooyinka iyo xanuunadana waxay muujinayaan oo cadaynayaan inaad tahay qof nool oo aad weli nooshahay ugu dambeyn xaaladaha adag noloshaada ma burburiyaan ee waxay ka dhigaan qof adag waana qasab qof waliba inta uu dunida dul saaran yahay in uu la kulmo isbedelo fara badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh